wuu ooyey maadaama uusan u oofin ballantii uu u qaaday. wuu awoodi waayey inuu ilaawo mar walbana waa xasuusan jiray. dadku ma aysan garanayn sirta uu la lahaa ee uu maalin walba darteed u samayn jiray. maxay tahay haweenaydaasi sabab qalbigiisu u burburay markii ay ka tagtay? maalin ka mid a maalmaha ayuu Lionel Messi u raacay ayeeyadii si ay u soo daawadaan mid ka mid ah tartanada kubadda cagta. inta aysan bilaaban ciyaartu ayaa tababarihii arkay in kooxdu uu ka maqan yahay hal ciyaaryahan, iyadoo ciyaartiiba la joojin rabo maadaama qof ka dhiman yahay. ayaa mushkiladaas waxaa soo faragelisay Messi ayeeyadiis si ay u badbaadiso ciyaartan burburi rabta. waxayna u sheegtay tababaraha inuu u ogolaado wiilka ay ayeeyada u tahay inuu la ciyaaro kooxda uu qofku ka dhiman yahay. wuu qoslay tababarihii isagoo u sheegay in wiilka ay ayeeyada u tahay uu gaaban yahay, sida kalena jirkiisu aad daciif u yahay. si aad ah ayay u bariday, waxayna ku tiri, waan ku baryayaa garkiya jilbahan ku haystaa, bal wax yarba ha noqotay hala ciyaareedaa. iyada oo ay sabab u tahay quusasho la'aanta ayeeyadan ee iska soo taagan ee baryada aan ka libiqsanayn, ayaa Lionel Messi la aqbalay inuu kooxda la ciyaaro. markaas ayaa waxaa dhacay arrin aan la filanayn. wuxuu awooday wiilkii yarka ahaa ee Leo inuu dhaliyo 2 gool, sababna uu u noqdo in kooxdu guuleysato. tababarihii waa uu rumaysan waayay, waxa uuna ka yeelay Leo laacib rasmi ah oo kooxda u ciyaara, una ciyaari doona ciyaar kasta oo qabsoomi doonta. balse waxaa jirta mushkilad. Leo ma uusan haysan kaba uu ku ciyaaro. qoyskiisu waxa ay ahaayeen kuwa aad u faqiir ah oo ku nool waddanka Argentine, mana aysan awoodin inay u soo iibiyaan kaba ciyaareed. balse ayeeyo ayaa lacagihii ay kaydsan jirtay oo dhan isaga kaba ugu soo iibisay una siisay hadiyad ahaan. sababtaas darteed Leo ayeeyadiis waxay noqotay waxa kaliya ee uu ugu jecel yahay caalamka. markii uu qof kasta ku bahdilayay jirkiisa daciifka ah iyo iyada ayaa si xoogan u difaaci jirtay. sidoo kale ciyaar kasta oo uu ciyaarayo way raaci jirtay, iyadoo dhiirigelin jirtay, magaciisana ku dhawaaqi jirtay, iyadoo fuushan jaranjarooyinka lagu fariistay ee laga daawado ciyaaraha. markasta waxay oran jirtay Messi markasta oo uu dhaliyo gool, iyada oo uu soo carari jiray si uu ula farxo. waxay tiri, qaaligaygiyo waxaad noqon doontaa laacibka ugu weyn caalamkan maalin ka mid a maalmaha. Leo waxa uu u malayn jiray in ay ayeeyadiis garabkiisa joogi doonto oo ay noolaan doonto weligeed, balse nasiib darro sanadii uu 11 jirsaday ayay ayeeyo geeriyootay xanuun haleelay dartiis. qalbigiisii ayaa murugo la dildilaacay. maalmo ayuu si aad u daran u ooyayay, isaga oo ciyaaraha iska dayn raba, sababna u tahay murugadii ay ku reebtay safarka ayeeyo ay aakhiro ugu socdaashay. markaas ayuu soo xasuustay in ayeeyo aysan ku faraxsanaan doonin hadduu joojiyo ciyaaraha. waxa uu go'aansaday in uu joogteeyo ciyaaraha ilaa uu ka xaqiijiyo riyadii ayeeyadiis ee ahayd inuu noqdo ciyaaryahan aad u weyn. nasiib xumo, xaqiijinta hadafkaasi waxa uu ahaa mid aan suurtagal ahayn. marka loo eego Messi, waxay u sheegeen dhakhaatiirtii inuu qabo xanuun naadir ah oo u diidaya jirkiisa inuu koro, yacni xanuun dhif ah weeyaan. iyadoo ay sidaas u tahay, waxa uu diiday inuu isdhiibo, waxa uuna sii waday ciyaarihii. wuxuu yidhi, dhakhtarku wuxuu isiinayay irbado markii ay da'daydu ahayd 8 sano. xanuunkuna waxa uu ahaa mid aad u daran, balse waan iskala qabsaday. waxay soo jiidatay hibada ciyaaryahanimo aadna ula dhacay mid ka mid ah ragga u qaabilsan naadiga Barcelona ee Spain ka dhisanay indhaynta ciyaaryahanada xirfadda iyo hibada u leh kubadda cagta. indhayuhu waxa uu la amakaagsanaa hibada Messi. si degdeg ah ayuu heshiis kula galay fayn meesha ka agdhawaa, waayo wuxuu ka cabsanayay inta warqadda la raadinayo in qolo kale heshiis la gasho. naadigii ayaa si lacag la'aan ah u daaweeyay, iyaga oo uga bedelanaya inuu naadiga u ciyaaro. wuu aqbalay Leo dalabkaas. markaas da'diisu waxay ahayd 13 sannadood oo kaliya. wuxuuna u safray Spain, wuxuuna ka mid noqday ciyaaryahanada yaryarka ah kan ugu fiican ee u soo bixi doona mar dhow naadiga kubadda cagta ee Barcelona. markii uu jirsaday sanadkiisii 16aad, wuxuu xaqiijiyay ka mid noqoshada ciyaaryahanada si rasmi ah, isagoo u ciyaari doona naadiga Barcelona ee kooxda heerka koowaad. isaga oo sidaas u da'yar misana xajmiga jirkiisu aad u yar yahay, ayaa ciyaaryahana awoodi waayay in ay kubadda cagtiisa kala baxaan. wuxuu ceebeeyay ciyaaryahano waaweyn isagoo adeegsanaya xirfadiisa iyo hibada uu u leeyahay kubadda cagta, oo aan oran karno waa mucjiso ka mid ah mucjisooyinka kubadda cagta ee qarniyadan. sanado kadibna jamaahiirtii aadanuhu waxay ku naynaaseen inuu yahay ciyaaryahankii ugu weynaa kubadda cagta tan iyo bilowgeediiba. caannimadaas iyo guushaas adduun ee uu xaqiijiyay ma aysan ilowsiin ayeeyadiis marnaba. markasta oo uu gool dhaliyo gacantiisa kor ayuu u fiiqi jiray, isaga oo u hadiyeynaya ayeeyadiis.
wuxuu ahaa mid gacmaha sidaas kor ugu fiiqaya isaga oo la farxaya ayeeyadiis wax ka badan 700 oo gool oo uu dhaliyay 20 sanadood oo xiriir ah. xitaa maalintan aynu taagannahay Leo wuxuu jaranjarooyinka ka dhex maqlayaa codkeedii ay magaciisa ku dhiirigelinaysay. waxay joogtay garabkiisa safarkii adkaa ee uu nolosha ku soo galay. xasuustiisa ayay dhex ahaan doontaa ilaa dhammaadka noloshiisa. waxay safartay inta aysan arag guusha aan xaqiijiyay. waan soo kaxayn lahaa waxayna igula noolaan lahayd Barcelona dhexdeeda. sidaas waxa yiri Messi. waxaanu nahay kuwo xoog badan marka aan haysano dad na aaminsan. sidaas darteed ayaan mar kale cagaheena ku istaagaynaa lana halgamaynaa maalinta cusub si aanu maalin uga yeelno kuwaas na aaminsan kuwa nagu faana. muuqaalkan waxa ay soo diyaariyay idin soo jeedinaya anigoo ah Cabdullaahi Cabdikariin Khaliif. dhinaca Facebook haddaad nagala socotid share iyo like inoogu qabo dhinaca YouTube kana subscribe iyo like dhiirigelinta aad baad u mahadsan.